kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxa kamida wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo culayskii ugu weynaa abid wajahaya kadib markii uu ogaaday in dhammaanba ay fashilmeen isku dayadii uu ku doonayay badda Soomaaliya iyo Abiy oo naf ka raadiyay madaxweynaha Kenya William Ruto xilli madaxweyne Xasan Sheikh uu isaguna ka daba tag cajiib sameeyay xogta kulan culus oo magaalada Nairobi ku dhex maray madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud xilli labada mas'uul ay meel adag ka wada istaageen damac guracan ee Itoobiya iyo Mr Gelle oo ballanqaad ka farxiyay madaxweyne Xasan Sheikh ku dhawaaqay wararka kale waxa kamida dawladda federaalka Soomaaliya oo shuruud cusub ku xirtay wada hadal ay la furto kooxda shabaab iyo ra'iisul wasaare Xamse oo arrin muhiim ah shaaca ka qaaday iyo madaxweyne Dani oo ku dhawaaqay wasiiradii ugu badnaa oo ay ka soo muuqdeen qaar kamida murashaxiintii u tartantay xilka madaxweynaha Puntland waliba qaarkii sida adag u mucaaradi jiray madaxweyne Dani qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah saaxiibayaal waana khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 29 bisha labaad ee February sanada 2024 barnaamijkan si shargaray oo dhammaan gaarsiiyay saaxiibada kale ee idinku jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantiin aynu ku bilowno wararkeena Abiy Ahmed waxa uu wajahayaa cadaadiskii markaasi ugu cusla abid iyada oo fashil markaasi xoog lena uu ka wajahayo dhinacii isku dayga markaasi badda Itoobiya xaaladaha gudaha ee wadankeeda ka jira waxa ay tahay mid aad iyo aad u adag gaajo badan ayaa laga soo warinaya gudaha wadankaasi iyadoo la soo sheegayo in dad fara badan oo Itoobiyaan ah ay gaajo darteed u dhinteen macluumaadadaas ayaa waxay yihiin kuwa markaasi xaalka ku adkeynaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaana uu markaasi ka qoomameynaya isku dayo natiijooyinkooda aanan markaasi la mahdin oo uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya Abiy Ahmed haddaba waxaanu ka eegaynaa dhinaca markaasi uu kaga fashilmay isku daygii uu ku doonayay in uu ku qaato badda Soomaaliya sida aad la socotaanba heshiis ayaa dhawaan dhex maray Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Turkiga heshiiskaasi ka soo koob waxa ay markaasi xukuumadda Muqdisho ka faa'iidi doonto haddana waxa uu dhinaca kale kordhinaya loolanka ay quwadaha ku dhex leeyihiin amaba ay ku dhex sameynayaan qaaradda Afrika iyada oo weli reer galbeedka ay xawilaada mushkiladahooda cunto uga bedelanayaan qaaradda Afrika haddana Afrika iyada weli waa ay markaasi isgacan bidixaynaysa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa aad iyo aad markaasi u ogaaday in uu ku fashilmay dhammaanba isku dayadii uu ku doonayay in uu markaasi ku qabsado qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya cadaadisyada gudaha oo aad u kordhay gaajada badan ee ka jirta gudaha wadankiisa diidmada faraha badan ee uu kala kulmay dunida inteeda kale iyo in uu meel kasta oo istaago la weydiinayo waxa markaasi ka jira geeska iyo sidoo kale dawladaha dariska la ah ayaa keentay in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu madax xanuun iyo jahwareer xoog la ka qaado arinta ku saabsan kiiska badda marka uu isku dayayo laakiinse waxa uu markaas sameynaya indhatir isagoo isku dayaya in uu markaasi hore u sii socodsiiyo arrimaha markaasi la xiriira in dawladdiisu iyo dadkiisaba ay markaasi helaan bad haddaba Abiy Ahmed oo aad u la daaladhacaya gaajada wadankiisa ka jirta ayaa waxa ugu darsoomay cadaadisyo kale oo banaanka ah waxaana arinta ay u muuqataa mid markaasi culayska ku sii kordhisay Abiy Ahmed madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo hadda maamulo Soomaaliya waxa uu dhowr jeer ku celceliyay in dariiqan uu qaaday Abiy Ahmed in uusan ahayn mid ay Itoobiya kaga bixi lahayd mushkiladda markaasi badla'aanta ay haysata waxaana uu ka bilaabay meel markaasi aad iyo aad u qaldan Abiy Ahmed ayaa la filayaa in uu dhammaanba ka soo laabto isku dayadii guracana ee badda isla markaana uu dib markaa ula soo hadlo Soomaaliya isaga oo ka qoomameynaya tallaabooyinkii guracna ee uu markaasi ku dhaqaaqay waa hagaag barnaamijkeena ayaad weli la socotaan markaana aanu eegno
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku sugan ayaa kula qaatay halkaas dhigiisa Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle. labada madaxweyne ayaa kulankaasi uga wada hadlay iskaashiga arrimaha saameynta ku leh labada dal oo ay markaa ugu horeeyaan arrimaha amniga iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. sida ilo xogaal ah ay markaasi inoo sheegeen Xasan Sheekh iyo Ismaaciil Cumar Gelle ayaa kulankooda aad ugu gurfeeyay xiisadda badda ee Soomaaliya ee kala dhaxaysa Itoobiya. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa marxaladihii ugu dambeeyay iyo halka uu hadda xaalka marayo uga warbixiyay madaxweyne Gelle oo xiisaddan si aan gambasho lahayn ula saftay Soomaaliya isagoo ah gudoomiyaha urur goboleedka IGAD oo Soomaaliya, Itoobiya, Djibouti iyo wadamo kale ay ku wada jiraan dhammaan. Djibouti ayaa aad markaasi u doonaysa in uu guuldareysto qorshaha Itoobiya ay badda ku raadinayso markii markaasi laga soo tago damiirka Soomaalinimada iyo garabka walaalnimo ee Soomaaliya ay ka hesho Djibouti. haddii Itoobiya ay hesho marin biyood waxay khasaare dhaqaale oo xoog leh ku tahay Djibouti oo iyaduna dhinacaas kale fikradeeda ka muujinaysa. malaayiinta Itoobiyaanka ah maadaama dalkooda uusan lahayn dekado ama bad waxa ay sahayda u soo martaa dekadaha dalka Djibouti. halkaas ayaa looga dadgureeyaa dalka Itoobiya shixnadaha ganacsi, cunnada, qutul daruuriga ah iyo wax kasta oo caalamka ay ka keensanayaan oo soo maraya badda. taas waxay Djibouti ku sii qasbaysaa in ay sii adkayso garab istaageeda Soomaaliya si Itoobiya aanay marin biyood u helin suuqaas weynna uusan uga xirmin. waxayna muhiim u arkaan in Itoobiya ay sii adeegsato dekadaha Djibouti. madaxweynayaasha Soomaaliya, Djibouti iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka mid ah madax badan oo caalamka ka socota oo ka wada qayb galaysa shir looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka oo maanta si toos ah uga dhacaya magaalada Nairobi ee dalkaasi ee Kenya. hagaag dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladda ay diyaar u tahay in ay wada hadal la gasho kooxaha Al-Shabaab ee dalkan ka dagaalama haddii nabad lagu helayo, wuxuuna shuruud ka dhigay inay joojiyaan dilalka iyo qaraxyada ay u geystaan dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. haddii aan nabad ku helayno oo dadkeena dilka iyo qaraxyada laga joojinayo waan soo dhaweynaynaa. waxaan diyaar u nahay nabadda. waxaan mar kale ugu yeeraynaa wiilasha la qalday iyo odayaasha khawaarijta ee caqligooda oo marka aad u xumaaday in jidka saxda ah ay ku soo toosaan. waxaan ballan qaadaynaa in dagaal shakhsi ah aanan kula jirin targetkeenu uu yahay caqiidada qaldan ee khawaarijta, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaaraha oo sii hadlayay waxa uu yiri dagaalka oo kaliya xal nooma aha. dagaalka waxaan ku raadinaynaa nabad, laakiin xalka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa wada hadal iyo isku imaansho in la isqanciyo. ayuu xalkeena ku jira dil iyo isqarxin kuma jiro. qofka marka hore dembiga gacanta kala baxo, markaas kadib ayay toobad u furan tahay, ayuu yiri. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa Muqdisho ka daahfuray shirka mabaadi'da nabadda Soomaaliya. wuxuuna cadeeyay in dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto kooxaha Al-Shabaab uu yahay markaasi nabad raadin, isla markaana ay diyaar u yihiin inay la fariistaan haddii ay ka baxaan waxa ay ku jiraan. guudaan saaxiibayaal daawadayaal wararkeena waa inaga intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.